Hoodo Gareys ayaa ka hadashay markii ugu horeysay arooska Abwaan Dowlad ee dhawaan dhacay. Ugu dambeyn xafladiisa arooska ayaa qabsoontay Abwaan Dowlad iyo sidoo kale gacalisidiisa ifku ka doortay ee Farduus. Dad badan waxay tuhunsanayeen in Abwaan Dowlad uu baadigoob xaas labaad ugu jiray Hoodo Gareys, balse warkaasi waa uu soo afjarmay. Ugu dambeyntii waxaa la dhigay munaasabadda xafladda Abwaan Dowlad iyo sidoo kale marwadiisa Farduus. Hoodo Gareys ayaa dhankeeda ka hadashay arooska Abwaan Dowlad, waxaana ay u dirtay hambalyo la xiriirta guurkiisa. Waxay qoraal dhambaaleed oo ay soo dirtay u qornaa sidan: hambalyo walaalkayga qaaliga Abwaan Dowlad iyo sidoo kale walaashay qiimo badan Farduus. Ilaahay ha idinkaga dhiga guurkiina mid barwaaqo iyo sidoo kale barakooba, reerkii lagu nasta lagu nagaado owlaad kheyr qaba kala helana eebbaha idinka dhigo. Tuduc gabageygii ka mid ah ayay tiri, sidoo kalena u dhacaysay sidan: guri lagu mashaawiro tolkuna farax la muusooda, mid gacal ka wada dhoorto sama marshiisiisa, martiduna ku soo hirito ehel ku maamuusta, oo socodka ku soo mara uu ku mahad sheegto. Adna hadalka aan ku mudayno muranku waa ceebe, nin rageed mar waa kaabta gabar ku muunaysa, laga yeel macaan raaliyadu waa muftax janno maal iyo caruur badan inuu moolo idin siiyo. Ducaan kuu mutaaxaya inaad marwo heleeshaaye, isoo marfaataxo inaan helo mas-uul fiicane. Kani waxa qayb uu ka yahay gabayga hore ay u tirisay Hoodo Gareys. Hase ahaatee dhambaalka hambalyada ee u diraysay Abwaan Dowlad ayay qoraal ahaan u soo raacisay, iyadoona sii tiri: Abwaan Dowlad waxaan leeyahay marxabaysi, waataa Farduus Maalik soo xulaye, ducadii la aqbaliyay anna faataxadii ii soo mar, weliba intaad caruus ka tahay. Arooska Abwaan Dowlad oo u dhacay si qurux badan waxaa kasoo qayb galay boqolaal qof. Waxaa loo dhigay dadkaasi xaflad qurux badan, islamarkaana xafladda si wanaagsan ayay u dhacday. Dad badan ayaa muddooyinkii dambe isku xamanayay in xiriir uu ka dhexeeya Abwaan Dowlad iyo Hoodo Gareys, balse Hoodo arrintaa hore ayay kaga hadashay waana iska fogeysay. Sheeko arrintaa la xiriirtana waxaan horaan ku baahinay boggan Sharmaarka Media.